bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cano wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada barnaamij jureedkii baahin t v oo xilligan oo kale aad ugu barateen inaad kala socotaan barta baahin t v maanta ay taariikhdu ay ku beegan tahay 22 bisha May sanada 2019 qodobo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan barnaamijka oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka Soomaaliya oo xiisada Kenya kala xiriirtay Mareykanka UK iyo sidoo kale EU haddaba jawaab noocee ah ay dowladda Soomaaliya heshay barnaamijka ayaan idinkugu faahfaahin doonaa haddii alla idmo qodobada kale ee daawan doontaan waxaa ka mid ah yaalala eegtay qaraxii maanta ka dhacay taalada darjirka Daasoon waa idiin soo gudbin doonaa haddii alla idmo waxaan sidoo kale barnaamijka ku daawan doontaan haddii alla idmo al-shabaab oo shaacisay dadka ay la eegteen qaraxidii ka dhacay maanta daljirka Daasoon iyo dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho waxyaabaha kale ee aan idiin soo gudbin doono ee aad ku daawan doontaan barnaamij jureedka baahin t v waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo saakay ka taagan qaybo ka tirsan gobolka Sanaag haddaba xiisadan iyo u dhaxaysa waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamij jureedka baahin t v madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dardaaran u jeediyay saraakiisha ammaanka ee gobolka Mudug kadib safarkiisii magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi qodobada kale ee aad ku daawan doontaan barnaamij jureedka baahin t v waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Mudug qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii alla idmo dowladda federaalka Soomaaliya oo xiisada Kenya kala xiriirtay Mareykanka UK iyo sidoo kale EU dowladda Soomaaliya ayaa raadinaysa daraf saddexaad oo farageliya khilaafka kala dhaxeeya Kenya xilli xukuumadda Nairobi ay sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso Soomaaliya oo ay ugu dambeysay mas'uuliyiintii fiisaha loo diiday iyo waliba xawaaladihii la galay ila wareydo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay in xukuumadda Soomaaliya ay xiriir la sameysay dalalka Mareykanka UK iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee Yurub kana codsatay in ay gacan ka geystaan sidii loo qaboojin lahaa xiisada labada dhinac dalalkan ayaa la sheegay inay aad ugu laacsan yihiin isla markaana aysan dooneen in ay ku lug yeeshaan muranka labada dhinac sabab la xiriira xaaladda oo aad u adag ayna rumaysan yihiin inaysan jirin qaab labada dhinac la isugu soo dhaweyn karayo sababta ugu weyn ayaa Kenya oo doonaysa in kiiska badda ee maxkamadda caalamiga ah laga laabto iyo Soomaaliya oo aan ogoleen in arintaasi wax wada hadal ah ay ka gasho sababta dowladda Soomaaliya ay u raadisay dhexdhexaadinta ayaa lagu macneeyay inaysan jirin jawaab macquul ah oo u muuqata in arintan ay ka bixin karto iyo iyadoo ka cabsi qabta in go'aan kasta ay qaadato ay xiisada ka sii darto yaalala eegtay qaraxii maanta ka dhacay taalada daljirka Daasoon ee gobolka Banaadir warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay isgoyska taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho kaasi oo si weyn looga maqlay guud ahaanba magaalada Muqdisho qaraxa kadib ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa rasaas badan riday goob ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku baaraan gaadiid ka adeegsada wadada aada madaxtooyada ayuu qaraxa ka dhacay waxaana kadib ciidamada dowladdu ay rideen rasaas culus warar dheeraad ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in qaraxa la eegtay sargaal ka tirsan ciidanka militariga oo haweeney ahayd oo lagu magacaabi jiray Faay Cali Raage waxaana la arkayay qaybo ka mid ah jirkeeda wararka kale ee laga helayo halkaas ayaa sheegaya in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay goobta ku sugnaayeen waxaana dhaawac la sheegay inuu gaaray xildhibaan Cabdikariin Shabeel oo baarlamaanka ka mid ah sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in xildhibaan Marin Cariif ay ka badbaaday qaraxa laakiin mid ka mid ah ilaaladeeda uu dhintay laba kalena ay dhaawacyo soo gaareen ku dhawaad 3 ruux oo dhaawac iyo dhimashada 2 ruux
ayaa goobta lagu arkay walow aanan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. xalay ciidanka dowladda ayaa la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho iyadoo baaritaan ay sameynayeen, waxaana jirtay cabsi laga qabay weeraro Al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho. waxaa sidoo kale jirtay digniino dhanka ammaanka ah oo lala wadaagayay hay'adaha ammaanka, taasi oo la xiriirta qaraxyo Al-shabaab ay qorsheynayaan inay ka geystaan magaalada Muqdisho. Al-shabaab ayaa shaacisay dadka ay la eegteen qaraxii maanta ka dhacay taalada Daljirka Dahsoon. ururka Al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax ka dhacay bar control oo ku taala taalada Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa waxaa ku geeriyooday sargaal ka tirsan ciidanka militariga oo lagu magacaabo Faadumo Cali Raage iyo waliba askar la socotay, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sida aan hore idinku sheegnay. ururka Al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxan ayaa sheegay in ruuxa nafti haliga ah uu ka dambeeyay qaraxa kaasi oo kaxeynayay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Al-shabaab ayaa sheegatay in qaraxa ay la eegteen saraakiil ciidan iyo waliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. xilligaasina waxa ay joogeen goob lagu baaro gaadiidka doonayay in uu maro wadada hormarta madaxtooyada Soomaaliya. dhacdada xanuunka badan ee laga diiwaan geliyay qaraxii maanta ayaa ahaa in gaari cabdibilaa oo ay la socotay Faay Cali uu ka badbaaday oo kaliya askariga kaarka aqoonsiga u geenayay ciidamada ku sugan barta kontaroolka. qaraxa ka dhacay taalada Daljirka Dahsoon ayaa jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ka dhacay goob ammaankeeda si aad loo adkeeyay. qaraxan ayaa imaanaya iyadoo ciidamada dowladda saacadihii ugu dambeeyay ay adkeynayeen ammaanka wadooyinka magaalada Muqdisho. markana Sanaag, xiisad colaadeed ayaa maanta waxay ka taagan tahay gobolka Sanaag sida ay sheegayaan wararka soo baxaya. xiisad dagaal u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland ayaa markale ka aloosan gobolka Sanaag kadib markii shalay ciidamada Somaliland ay weerar kadisay ku qaadeen wafdi uu hogaaminayay wasiirka waxbarashada Puntland oo marayay deegaan lagu magacaabo Damalaxagare. ciidamada Puntland ayaa xalay ka baxay gobolka Bari kuwaasi oo saaka gaaray deegaanka Damalaxagare ee gobolka Sanaag, halkaas oo ay shalay ku dagaalameen labada dhinac. dhanka Somaliland sidoo kale waxaa la sheegayaa in xalay ay soo rartay cutubyo ka tirsan ciidankeeda oo fadhiyay deegaanka la yiraahdo Dararweyne oo qiyaastii 60 kiiloomitir galbeed kaga beegan Damalaxagare, kuwaasi oo iyaguna saaka ay soo buuxdhaafiyay halkii shalay lagu dagaalamay. xaaladda gobolka Sanaag ayaa saakay waxay ku waabriisatay jawi colaadeed iyadoo laga cabsi qabo inuu halkaasi uu ka qarxo dagaal u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland oo galigii dambe ee shalay ay isku fara saareen deegaano ka tirsan gobolkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa si kulul u cambaariyay qaraxii Al-shabaab ay la beegsadeen dad barakacyaal ah oo deganaa dhismihii hore ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. wasiir Maareeye ayaa ugu horeyn ugu tacsiiyay dadka masaakiinta barakacyaasha oo iyagoo alla dartii u sooman ay Al-shabaab ku waxyeeleeyeen qarax laga soo buuxiyay gaari ayna ka soo gaartay dhimasho iyo dhaawacba. waxaan eeba ugu bariyaa dadkii ku dhintay iyagoo sooman dhammaantood in alla uu siiyo jannadiisa, kuwa ku dhaawacmayna oo uu ugu booga dhayo. wasiir Maareeye ayaa wax lagu xumaada ku tilmaamay weerarkii ka dhacay Daljirka, isla markaana waxa uu hoosta ka xariiqay
in dowladda Soomaaliyeed aysan marnaba ay ka daari doonin badbaadinta shacabka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayr Maareeye ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay si laba jibaaraan gacansiinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka adag kula jira Al-Shabaab. waxa uu rajo wanaagsan uu ku muujiyay in dhawaan la soo afjari doono jiritaanka Al-Shabaab waa sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dardaaran u jeediyay saraakiisha ammaanka ee gobolka Mudug. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo muddooyinkii dambe kulamo la qaadanayay saraakiisha amniga iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa dhinacyada uu la kulmay waxa uu ku adkeeyay in loo istaago sugidda ammaanka gobolka. madaxweyne Dani iyo saraakiisha ammaanka gobolka Mudug qaybta Puntland ayaa si wadajir ah u sheegay in xoogga la saarayo sugitaanka ammaanka si loo xakameeyo dilalka qorsheysan ee mararka qaar ay ka geystaan kooxo hubeysan. madaxweyne Dani ayaa sheegay in ciidamada booliska gobolka Mudug ay waajib ku tahay sugidda amniga iyagoo ugu baaqay waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay garab ka siiyaan ciidamada isla markaana ay ka maamulaan waxyaabaha looga baahan yahay ay diyaar u yihiin. oo dadka hadda gacanta ku haya inay xanuunsan tahay aan la tabin ay noqdaan dad iyagana kaalintaa buuxiyo. waxaan rajaynayaa insha allah xaawo maalmo dhoweyd iyadoo xanuunsanaya waxay ka qayb qaadanaysa shirka horumarinta haweenka Puntland oo garow lagu qabanayo. marka waan rajaynayaa doorkeeda iyadoo caafimaad qabtana way shaqayn jirtay iyadoo xanuunsanna weli way shaqaynaysaa. dadka noocaas waa dad ku yar bulshadeena. waan rajaynaynaa gabdhaha halka wax lagu baray kuwa badan noocaas inay nooga soo bixi doonaan. haweenku mar walba waa ay ka firfircoon yihiin ragga wixii loo dhiibana waa laga arkaa. quruxda xaruntan ayaa muujinaysa dhirta ku taalla iyo sida ay u nidaamsan tahay. waa hubaa hadday ahaan lahayd meel rag ku xaraysan yihiin inay si kale u ekaan lahayd. marka aad baad u mahadsantihiin. intaa markaan ka gudbo runtii xarfo ani qiimo gaar ay leedahay. soo dhoweyntii markaanu sharaxaana runtii weli meelahan ilaahay bay ka mid tahay. barnaamij wareedkii aad kala socoteen Baahin TV oo idinkaga imaanayay stuudiyaha Muqdisho. daawadayaal waa naga inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.